kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa idaacadii wararka xayawaanaadka iyo duurjoogta wariiri ayaa maxkamad la soo taagay kadib markii uu ku xadgudbay mustaqbalkii gabadh quraanjaa arrintaas lagu tilmaamay mid xadgudub ku ah xeerarka iyo xuquuqaha u kala degsan xayawaanaadka jinac duulaanka ayaa saaka weerar ku qaaday saldhig aboorku ku lahaa meelan halkaasi ka fogeyn isagoo gabi ahaan baabiyey saldhigii aboorkaasi ku sugnaa ayanu hadlay jinac duulaanka mastarmintido 10 markaasi afka ku hayay wuxuu sheegay inay ku howlanayeen dundumooyin sharci darra gudaha ogaadeen Malaysia daqsiga ayaa saaka weerar ku qaaday hodheel Paradise Xambili soo ku sugnaa Malaysiadu adeegsato noocyadiisa kala duwan ee qaadiyo fargeeso ayaa waxay sheegtay inay baabiisay gabi ahaanba hase yeeshee basal dhaawac halkii taale ayaa sheegtay inay markii ugu horeysay oo saxamaanta la soo weeraro mudaharaadyo ballaaran soo qaban qaabiyeen beelaha loo yaari oo diif iyo sangaaliyiisa waxaan wata ayaa la isla soo maray meelo badan hal isla yimid markii dambe xafiiska ku leeyahay geela dulqabow halkaas oo rati qooqan oo kula hadlay sheegay in kala dambeyntii amniga la soo celiyo hase yeeshee la xadiideen magaceeda la soo xigtay ayaa sheegtay inay ahayn umuurahaasi wax marnaba lagu qanci karo injineerada caarada ayaa soo diyaarinaya inay fiilada korontada u galiyaan maqale iyo ilaa goday inta u dhaxaysa sayasha daqsiga ayaa markiiba ka digay waxa uu sheegay taas inay tahay khiyaano la rabo in lagu hakadgeliyo duulimaadyada sare ee daqsiga quraanjada taliska ugu sareeya ayaa koodka salkiisa tashi degdeg kule waxayna muurtan ku soo beegantay mar meel agtooda muluc lagu soo ganac gooyay waxay ka tashanayaan si gabi ahaanba mulucaas u soo xariisan laayeen sayasha mister madaxtaag ayaa shir jaraa'id qabatay markiiba waxay sheegtay in haddii ka waantoobi waayaan jiidashada qorratada bulaca iyo weynta in ayaguna talaabo dhinaca malafsiga oo ugu horeyso quraca ay kaga ururun doonaan quraanjada markaasi aad kala socotaan waa idaacadii wararka xayawaanaadka mawjadaha qalinka iyo qoranka iyo dhibic hal bayr ay idin ka dhageysataan wasiirka baranbarada iyo kutaanka ayaa shir jaraa'id qabtay waxa uu sheegay kooxaan caafimaadka isku sheegay inay ku soo duuleen naflay badan hase yeeshee taa bedelkeeda ay kaga jawaabi doonaan qaniyo kulul oo wadha laga geliyo gaar ahaan dhakhaatiirta nuqulkaasi waxaa kula siixinaa beelaha jeermis dawladda military ka qayb galeen diyaaradaha qumaati oo kacay qumbulaaga mid ayaa soo dhacday markii cumilada ay xumaatay geed lugta u galay waxaasna qarxitaanka diinka loo yaqaan markii nooca qoondadii ay la kacday diyaaraha ayaa dhageystayaal si xiiso leh u socda saaka waxa wada ciyaaray kooxda Sambus iyo Mandasi dhaxdhaxaadiye waxa ka ahaa saliid hal iyo eber baa lagu dhuftay kooxda Mandasi Sambus waxa goolkaasi u saxeexay ciyaaryahanka afkooda ka dheeray basbaas feerka miisaanka culusaaka laba wan baa isku haleeshay mid ayaa herdi adag lala soo dhigay waxa la sheegay wanka kale inuu ka hadhi doono tartanka kaleesha xagga sabeenaha taniyo intaynu mid warkan la mid ku kulmi doono qaybihiisii hore warkan hordhac isagii oo faahfaahsan saacadu marka ay 3 soo gaadhay aad dhageysan doontaan baranbare ayaa isku soo dibariday dooli ayaa isku farsamadii noo hagayay waa qoor baranboolo iyo bahdii xayawaanaadkooda la sidaa iyo nabadgelyo